السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة وعديقة حاجي محمود. deeqo xaaji maxamuud waxa ay ku nooshahay dalka Norway gaar ahaan magaalada Bergen waana hooyo Soomaaliyeed oo horumar ka samaysay nolosha gaar ahaan waxbarashada waxa ayna dhamaysatay heerka koowaad ee waxbarashada waxa ayna ka mid tahay dadka farakutiriska ah ee noloshooda horumarka gaarsiiyay iyadoo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba colaadihii ahliga ahaa ee ka dhacay sagaashamaadkii dalka Soomaaliya ayaa waxyeello ka soo gaartay waxay ku weysay mid ka mid ah labadeeda lugood hase yeeshee nolosheeda kama hor istaagin inay niyad ku keento masiibada soo gaartay xilligaasi haddana waa haweeney jecel sida ay ii sheegtay inay wax u qabato dadka sideeda oo kale ee qaba baahiyaha gaarka ah waxaana kala sheekaysta horumarka ay gaartay sida ay ugu suura gashay iyo waxqabadka ay doonayso inay u samayso dadka iyagu baahiyaha gaarka ah qaba ee u baahan in la caawiyo kadib markii ay samaysay urur caawiya dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxaan aas-aasay ururka oo naafada oo hadii dadka caawiyo Norwegiga is afka xalaad waxa lagu dhahaa Hjälpa Mennesker med Special Behov marka ururkaas waxaan aas-aasay sanadkii 2020 bishii Afraad waxaana igu qasbay baahida maadaama aniga baahida gaarka aan ahay waxaan ku qasbanaaday inaan caawiyo dadka aniga camal marka garab badanna waan helay medlem badan aan hadda noqonay maxaa la dhihi jiray hadda mar dhow 2 sano uu socda ururka caawinaad badan baan ka helay xagga dad Afrikaan ah iyo Norwegiba aadanuhu marka uu laxaadkiisu qayb ka mid ah waayo waa hubaal inuu u baahan yahay caawimaad iyo garab istaag deeqo ayaa soo weydiiyay haddii ay jiraan dad si gooni ah ay u caawisay sida hadda iyadu ay doonayso inay bulshada laxaadkooda aan taamka ahayn iyo kuwa dhimirka la u caawiso dabcan way jiraan caawinaad badan markaan wadankayga hooyo jooga iyo markaan inta imaadaba runtii caawinaad badan ayaan helay maxaa la dhihi jiray si fiican ayaa la ii garab istaagay marka waxaan jeclaystay sidaa iyo si lamid ah iyo si ka sii fiican inaan u caawiyo anigoo ku caawin doono oo jecel inaan ku caawiyo waayo aragnimadayda iyo agabyada ay u baahan yihiin inaan ku caawiyo deeqo xaaji maxamuud oo dib ugu canaysa xanuunadii ay soo martay muddadii ay ku nooleed Soomaaliya una diidan inay maraan dadka aan laxaadkoodu dhammayn ee ku nool Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah dalalka Afrika una baahan gargaar bini'aadanimo ayay sheegtay inay jiraan qorshooyin badan oo ay ugu talagashay si ay u caawiso dadkaasi qorshooyin badan ayaa jiro laakiin waxa hadda ii qorshaysan inaan maxaa la dhihi jiray mudnaanta koowaad siiyo dadkii ku waxyeeloobay ama lixaadkooda ku waayay dagaalada sokeeye oo muddada dheer ka socday wadankayga hooyo aan raba inaan horta mudnaanta koowaad siiyo oo waxaan la qaban karo aan la qabto oo maxaa la dhihi jiray tago oo maxaa la dhihi jiray ku caawiyo waxaan maanta aniga ku dhaamo maxaa la dhihi jiray qofka markuu lixaadkiisa waayo runtii waxa ku imaada niyad jab weyn anaa soo maray anaa og dhibaatada ay leedahay marka lixaadkaada weydo oo haddana joogtid wadankeena hooyo oon lahayn sida wadamadan horumare maxaa la dhihi jiray mudnaan badan aan lagu siinaynin wadankan aan joogno waa wadamo horumare oo mudnaan badan siiya dadka lixaadkooda weysan ama lixdooda lixaad meel laakiin markaan wadankeena joogno intaasoo dhan dadka ma helaan waxaan rabaa inaan mudnaanta siiyo dadka noocaasi horta oo wadankayga joogo hadda xaalkan waxaa noo diyaarsan wax badan hadda waxaan ugu talagalnay inaan gaarsiino caawinaad degdega dadka wixii tabarteena insha Allah hadday noqoto mootooyinka biraha dadka jaban ku boodaan ama dadka curyaamiinta kuraasta dadka maxaa la jiray curyaamiinta waayeelada ay ku fadhiistaan oo lagu riixo waxyaabo badan aan rabnaa hadda inaan gaarsiino iyo wixii tabarteena insha Allah biidnillaahi kariim waxa halkaas ku joogsanayna ma ahan caawinaadeena waa wax soconi doono oo inaan dadkeena marka tagarab taagnaano oo aan gacan siino ayaan diyaar u nahay haddaan nahay dadka u istaagay baahida gaarka ah inkastoo deeqo ay caawimaad iyo kaalmeyn shakhsiyadeed ay dad badan oo laxaadkooda aan dhammayn u qabatay ay jiraan sida ay ii sheegtay ay haddana garwaaqsatay baahiyahaasi inaysan kaligeed waxba ka qaban karin sababtaasina ay ku kaliftay inay samayso ururkan si ay caawimaadda ay mudan yihiin
ay u gaarsiiso dadkaasi. tan iyo waaga Norway yimid ilaa hadda waxaan aad iyo aad u jeclaa oon haddana jeclahay inaan dadka baahida gaarka caawiyo. dad badan oon aniga shakhsiyan caawiyo way jiraan oon la soo koobi karin runtii maadaama baahidii ballaaran tahay oo dadkii baahida gaarka aad u badan yihiin waxaan go'aansaday aan ururkan sameeyo si aan baahidii qof walba aan meeshii loogu talagalay aan gaarsiino maadaama aniga keligay aan markii hore ahaa waxba caawinaad badan ma samayn karin waan dadaalay laakiin caawinaad badan ma samayn karin hadda waxaan go'aansaday inaan ururkan sameeyo si aan baahi kasta qof kasta aan gacantayda ama aan gaaro oo caawinaadayda u gaarto. ugu dambayntii waxay ugu baaqday bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway inay ku garabsiiyaan tallaabadan ay qaaday halka dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee u baahan in la caawiyo ay la soo xiriiri karaan si ay u dhageystaan isla markaana u caawiso maadaama aan isxilqaanay oon bilownay inaan dadkeenu istaagno oo baahida gaarka qaba waxaan ka codsanayaa qof walba oo ku nool waddanka Norway oo Soomaali sheegta ama Soomaali ah inay garab naga siiyaan sidii aan u sii wadi lahayn hawshan aan ugu istaagi lahayn dadkeena baahida gaarka qaba oo ku nool waddankeeni sidaan ogsoonahay dadkeeni aad bay ugu dhibaataysan yihiin waddankeena caawinaad especially markay qofka baahida gaarka uu qabo oo waddankeenina joogo qof kasta Soomaali uu og yahay dhibkaas halkaas ka haysto dadka Norway kali ma ahan Soomaalida dhan meel walba ku nool waan soo dhaweynaynaa haday noqoto garab istaag haday noqoto talo maxal dhihi jiray dhinac walba haday nagu garab istaagan waan soo dhaweynaynaa gacmo furan aan ku soo dhaweynaynaa cid walba Soomaali ah maxal dhihi jiray Soomaalida maamooyinka hablaha wiilasha cid kasta oo maskax nagu darsanayso mise maxal dhihi jiray talo nagu darsanayso gacmo furan aan ku soo dhaweynaynaa waana la soo xiriiri karaa email-aan leenahay telefoonaan leenahay maxal dhihi jiray adduunka uu casriyoobay technology la gaaray marka waxaana laga soo meelo badan laga soo xiriiri karaa dadkii raba inay nala soo xiriiraan kuwa baahida gaarka iyo kuwa aan baahida gaarka ahayn xataa way nala soo xiriiri karaan way nala soo hadli karaan. Bilal Maxamed Cabdi SDN TV Bergen Norway.